munaasabad ay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ku shaacinayeen shirkadda ku guuleysatay dhismaha wadada Kalabeed ilaa Hargeysa ayaa maanta lagu qabtay xarunta guddida qandaraasyada qaranka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xubnaha guddida qandaraasyada qaranka shirkadda mashruucan ku guuleysatay hay'adda GIZ oo iyadu mashruucan maalgelinaysay iyo maareeyaha guud ee hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka iyo qaar ka mid ah xubnaha guddida qandaraasyada qaranka iyo sarkaal ka socday hay'adda GIZ وعادي معلم بدأ إن مشاريع كل دون لقوا ترتموا وهاي قدراسة قرنك إن عدد كترتنوا قبضتهم معلم والبويد عذا مشروع صدح وكاكم صدح وتجيب كاكمنا هو حوض قيمين يي أنتي بيده هرمود كهيد overall management كجودة معمر كجود لهيد إن RDA هذا سيدو كله funding كا GIZ أو يجونا supervision يقيمين تقييم كها wadadu waxa weeye tadalkan aynu ku noolahay isku xiraysa waana tamaalin walba aad ogeydeen khasaaraha dad iyo dunyaba ka dhaca ee dadku ku rogmadaan ee gaadiidku ku baabaan farxadina ah inaynu mashruuc u dana qarankan u dana dadka reer Somaliland inoo wada dana aynu ku daafureen halkan GIZ remains committed to the Somaliland Republic and will support RDA in the upcoming time. gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen ayaa waxa uu ku dhawaaqay shirkadda iyadu mashruucan ku guuleysatay 12 shirkadood ayaa u soo tartamay 3 shirkadood baa short list ka soo galay management and engineering company Somaliland Home Group Amal Chefi civil engineering contractor and company wuxuu nasiib ku siiyay oo ku guuleystay Somaliland Home Group kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland engineer Cismaan Sheekh Cabdi anaga waa noo guul ilaahayna waxa ka rajaynayaa hawsha inaan ku guuleysano anaga waa noo sharaf gudidana waa u sharaf even tartamayaashii waa u sharaf oo u sharaf weeyay waana iman doonaan mashaariic badan oo kale oo ay qayb ku qaadanayaan Cabdirasaaq Jaamac Ismaaciil maamulaha guud ee shirkadda Cumaaniga oo ku guuleysatay qandaraaskaasi ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay inay dhisi doonaan waddo tayo leh isagoo ka warramay dhismayaal kala duwan oo ay dalka ka fuliyeen ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Somaliland Home Group Sudan Cabdirasaaq Jaamac Ismaaciil isagoo ballan qaaday in ay dhisayaan waddo tayo leh sidii horeba looga bartay wadada madaxtooyada hormarta wadadii dalay Kalabeed tan Xamaasiye ilaa iyo macaaneeya waxaan dhisnay wadada Cergaabo 5 kilomitir baan ku leenahay Burco 5 kilomitir baan 6 kilomitir soo dhignay Berbera 6 kilomitir baan dhignay Gabiley 3 kilomitir oo Wajaale 2 kilomitir baan dhignay wadanka meel intiisa badan waxaan ka soo shaqeynay ma jirto aqoonta ay u leeyihiin waxaan ka shaqeynayaan iyo qiimaha iyo qalabka aad haysatid ayaa lagu xulanayaa xanuun maleynaya markii daan tartanay intaaba anagu inaanu ugu hayskadi ugu cadda nasiibkuna iyo tawfiiqda meelaha ay halgeedii jirtaa waxa kamid ah imika mashaariic weyn oo wadno garaashkan Hyundai baan u dhisaynaa meel wakaalada Hyundai dabshiilay baan wadnaa waxaan wadnaa runwayga military base waxaan kala wadnaa inaanu ka iibino shirkadaha ka shaqeynaya Berbera qalabka materialka sida wax lagu dhiso sida jayga dhagxanta waaweyn iyo waxyaabo la mid ah aanu ka iibino anagu kasab la garanno kala shirkayga Maxamed Jaamac Umal wararka warbaahinta SBC Hargeysa